السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أمديق إن شاء الله waxyaabihii oo qurxinta timaha maxay ahayd wali aan ka faa'iideysanayna wixii ii shaqeeyay oo aan ka faa'iiday aan rabaa inaan ila qaybsataan insha Allah walaalahayga saliidan waxaan isticmaali jiray muddo hore aan wax badan isticmaali jiray maxay ahayd waan jeclaay waa faa'iidooyin iyo inay ila shaqeynayso ay ii shaqeynaysaan aan maxay ahayd ka arkay kadib in muddo ay isticmaalin ma raadinin ma soo iibsanin saliidaha kale oo iska caadiga ah marsi jiray marka hadda maalin hore anoo dukaanka soo adeegana isheeda qabatay waa ka soo gatay waan isticmaalaa horeen waa u isticmaali jiray haddana waa ku noqsaday saliidan marka ma sha Allah waa saliid adag maxay ahayd oo caraf yar oo qabooban leh oo ma sha Allah ku naasibeyso kulli ani ahaanteyda waan ka helay wayna ii shaqeysaa sida hore u sheeganay waxaan ii shaqeynay adna ku shaqey karin marka walaalahayga insha Allah haday ku shaqeyso ma sha Allah ka faa'iideyso haday maxay ahayd ama allergy ku tahay ama aad ka dareento inay kula shaqeynayeen insha Allah waad ka bedeli kartaa ma sha Allah waa saliid yar oo adag oo caraf yar oo qabooban leh maxay ahayd tan aan isticmaalaa marka waxyaabihii aan hore idii soo tusiyay waxyaabaha hadda aan soo wadabo marka madaxa aan mariyo oo aan ka nadiifiyo waa mariyaa hadda waxaan ku soo biiriyay saliid kale oo gabar walaal ee amaantay oo kulli hadda tuun iyo waxyaabahaas aan ka sameeysan oo anigana hadeertaan wax walba oo kiimika aan ku jirin oo wax iska caadi ay tahay markii oo maxay ahayd ama dad aan ka faa'iideystay ama dad maxay ahayd aan ka arko ama aniga aan baroobeeyo inaan isticmaalaan jeclahay waa sameeyaa ama dadka aan la qaybsado marka waa kaas walaalahayga saliidana hadda ku soo biiriyay labadooda isku daraa haddaan bilaabitan aniga faa'iidadeeda wili hore uma arkin way igu cusub tahay maxay ahayd laakiin gabar walaalaha ii sheegtay sida arkaysaan waa ka waxa ku qoran tuun iyo ka sameeysan iyo maxay ahayd saliid saytuuna maxay ahayd iyo ku qoran kulli wixii ku qoran waad arkaysaan waad akhrisan kartaan iyo sawirkeedaba waad arkaysaan insha Allah walaalahayga waxa waaye aada maxay ahayd laygu amaanay marka labadooda isku daraa hadda maxay ahayd benefitkeeda insha Allah arki doona saan hore u sheegay hadii idii shaqeynaynin qofkay ama allergy ku ama aysan u shaqeynaynin ha iska joojiyo qofkii ay la shaqeynaysana ma sha Allah ka faa'iideysto walaalahayga wax walba faa'iido ay noogu jirto inaa maxay ahayd soo galiyaan jeclahay oo aan kala faa'iidno maxay ahayd waad ogtihiin biyaha kuleelka iyo waxyaabahaas iyo timaha way baabi'iyeen marka wixii oo najaraale oo maxay ahayd ama qofba maxay ahayd oo faa'iido ku arka waa inaa maxay ahayd aan kula dadaalna marka walaalahayga aan kala faa'iidno ma sha Allah marka labadoodana hadda isticmaalaa waa isku daraa waan ku shaleeyaa marka ma sha Allah marka walaalahayga sidaas aan ku soo gabagabeynaa maxay ahayd intaas yar oo gaabana idin la qaybsanaaye haddii aad ka hesheen fiidiyowyada soo geliyay iyo fiidiyowyada soo wada iyo fiidiyooganba insha Allah subscribe like share insha Allah walaalay inta hore ila joogtay iyo inta igu soo biirtay iyo inta igu soo biiri doonta waa mahadsantihiin khayr iyo barwaaqo idin rajaynaya عافيس iyo masaabax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته